سبحانك يا عظيم بالوحى صوص عضائق. السلام عليكم مقعيق وموسي يوتيوب كداون السنة وموسي اسماعيل فضلا دا يوتيوب جناك أكو عصب تايتا داوشدا كواد waxaan kala codsanayna subscribe gareyso gabaykana furto si aad u noqoto daawada ugu horeeya waana ku maasantay kamni noqoshada janaakeen waxa ku leenahay soo dhaw okay haddii aad doonaysid wax ii soo dirto oo wax ay la wadaagto waxa ugu soo dir kartaa Instagram-kii waxa ku qoran Muuse Ismaaciil waan soo follow garay waa maasantay okay maanta waxa ku wada muuqaal kale oo la yaab leh maalmahan dad waxa soo badanaya dhaqan xumada awal hore waxa ogeeyay TikTok iyo YouTube-ka inuu ahaa barta dhaqan xumada TikTok balse hadda waxa barta dhaqan xumada noqotay YouTube oo qof walba uu soo galo oo si uu lacag uga sameeyo dhaqan xumo u sameeyo oo magacna u sameeyo ma ahan magac xumaan ah ku yeelatay magac ma ahan okay waxa soo baxay challenge waxay leeyihiin challenge balse anaga agteena challenge kama ahan waa dhaqan xumatii ugu weyneed okay aan isla daawano aanan falanqeyno ino bilaabo no sidaad aragtaan gabadhan way foorarsatay oo micnaa way taagatay سبحانك يا عظيم. wiilkana buufin buu dhac ku siiyay okay bal u fiirso agtooda wuxuu ka yahay challenge balse agteena wuxuu ka yahay dhaqan xumo bal ka waran gabar Soomaaliyeed oo la leeyahay waa Soomaali dhaqanka Soomaali beesata iyo diinta Islaamka oo hadana sidan u dhaqmeysay wiil runtii ma wanaagsan waxaan camal laakiin la imaada wax dadka ay ku soo jiido kartaan oo aan dhaqan xumo ahayn meeshan waa bad waana YouTube dhinaca aragti ka gal balse hala imaanin dhaqan xumo iyo wax diinta Islaamka ka baxsan aan sii daawano wallahi ka muuqaal ma ahani سبحانك يا عظيم بالوحى صوص عضائق. سبحانك يا عظيم. adiga daawanaya bal ka waran gabar walaashaada ah hadii iyadoo sidaan sameynaysa aad arki lahayd wallahi xanuun aanan caadi ahayn waaye runtii xanuunka aad dareemi lahayd waa xanuun aad iyo aad u weyn balse ma aqaano sababta ay gabadha sidaan u sameynayso maynan lahayn waalid maynan la dhalan walaal meeyay dadkeedii meecashadaan wallahi maalmaha dambe waxaan arkay maba ahanba wax macquula sababtoo ah gabar Soomaali ah oo leh dhaqanka Soomaalida baan heystaa iyo diinta Islaamka oo sidaan u dhaqmayso wallahi adduunku waa gabagabo kullay waxaan dhihi lahaa waalidkii gabadhna dhalay ha cishadaan wajiga ay qarsatay in shareer ay soo xiratay balse ilaahay kama qarsoono wajigaaga sidoo kale dadka ku yaqaanana way ku dareemi karaan sababtoo ah qof walba hadduu wajiga soo qarsado oo qof yaqaana laakiin wuu dareemi karaa sababtoo ah wajiga kaliya iskama garto meelaha kalena waa la iska gartaa marka waalidkaaga kullay haddii ku arkaa way ku dareemi doonaan balse waxa xanuun ah inaa waxaa sameyso intaa ka badan siima daawo karna muuqaalka waa muuqaal aad iyo aad dhaqan xumo ah laakiin waxaan leenahay waxaan iska daaya inta lacag raadinaysaan yey wax kale inay ku dhicin muuqaalkaas si share garay si uu gabadha waalidkeed u gaaray oo arkaan ay u cishto videogan like garay waa ku maasantahay hadii channelka ku cusub tahay subscribe saar waa ku maasantahay daawashada muuqaalkan daawad waxayna ballan videogan video xiga bye bye